xisbiga mucaaradka UCID ayaa waxa uu maanta ka hadlay shaqo joojin ay ku dhawaaqeen gaadiidka basaska ee ay adeegsadaan shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa. Xogayaha xiriirka gobolada ee xisbigaasi ayaa dhanka kale golaha wakiilada Somaliland ku eedeeyay in iyagu ka dambeeyaan mooshinka xasaanada looga qaadayo xildhibaanada golayaasha deegaanka dalka. sidaan wada ogsoonahay basasku dadweynaha guraa oo lafdhabarta magaalada isu socodka magaalada ay lafdhabar u yihiin maadaama aanay jirin baabuur gaadiid dadweyne oo transportation oo imika sida caalamka oo kale dawladda hoose waxa bay leeyihiin waxay sameysteen imika dawladda hoose ee Jigjiga Addis Ababa magaalooyinka Jaarkana oo dhan dawladda hoose waxay leedahay gaadiid u gaar ah oo la yiraahdo gaadiidka dadweynaha marka maadaama inaan taalahayn waxa halkii noogu jira gaadiidka basaska loo yaqaano ee dadka gura oo sina private noqonaya sina public noqonaya oo macnaha public marka la leeyahay dadkii qofkii 2000 haystaaba uu fuulaya cid laga ma laha oo iska public si marka aad u eegtana waa shirkado ay dad gaar leeyeen ama baabuur dad gaar leeyay run ahaantii magaaladuna way ku dhaqan tahay waana ku asturan tahay dadweynuhu aad iyo aad bay u isticmaalaan waana waxa kaliya ay shaqooyinkooda iyo hawlahooda maalmeedkooda ay ku galaan joojinta shaqada ay joojiyeen kulli waxay ku salaysan tahay cabashooyinkii hore ee ka caban jireen dawladaha hoose iyo shaqo xumadooda annaga hadda ka hor waxaan dhowr goor hore cabasho kala kulanay basaska iskaashtooyinka basaska waaweyn dadka gura qaar ka mid ah ayaa dhowr goor cabasho noogu yimi waxyaabaha ay ka cabanayeen waxa ka mid ahayd wadada markii dambe la dhisay oo tagta ka bilaabanta halkan saldhiga rugta kutubta dhinaciisa shishe ka bilaabanta ilaa maxamed nooge jungalka socota wadadaas oo 3 goor intii dawladda hoose tiri lacag keena 40% lacagtii markay bixiyeen ayaa hadana wadada la dhisay lacagtii la cunaa sharcina looguma lahayo xaq dadka waayo dadku cashuur bixiye markuu yahayna cashuurta si toos ah ayaa looga qaadaa basaska iyo wada maristaba xaqna looguma laha marka wada loo dhisayo in la yiraahdo 40% keena meelay sharcigeena dastuurkeena kaga jirtaa ma jirto mid shiciir loo oran jiray bilaabay sheekadaas oo bari yiri 20% ma qaadaya kuwana 40% bay ka dhigeen 40% ha ka dhigaan laakiin maadaama aanay jirin feasibility study oo macnaha imika marka mashruuc la dhisayo inta ku baxaysa oo dhameystiran baa lacagtiisa oo feasibility study ku muuqata lagu siinaya salaaguna mashruuca waxa ku baxaysa $150 marka de 120% si sharciyeed u garanaysa oo wax la haysa wadirtii guud lacagta dadka waxaad ogaanaysaa 20% markaad bixiso inay inta noqonayso marka aanad feasibility study-ga ama lacagta guud ee meesha ku baxaysa aanad haynin ee lagu yiraahdo 40% soo bixi de inaad xitaa 100% bixisi ma garan kartid ilaa lacag u bixiyay marka barigaas oo nimanka ay saragnay oo aad uga caawinayeen dawladda hoose waxyaabaha ka caawinayeen wax ka mid ah maayirka lama arkeen dhawaan warar baa soo baxay in kasto golaha la horgeeyay sidii xasaanada looga qaaday xildhibaanada golayaasha deegaanka ee gobolada iyo degmooyinka dalka laga soo doorto maadaama waa tahay xogayaha xiriirka gobolada iyo degmooyinka ee xisbiga UCID oo ay shaqadaadii tahay arintaasi sidaad u aragtay waxaan arkaa ma garanaysaa in dhaxal iska soo tuurayo oo hadii badan kale baarlamaankan fashilmay 15 sano soo fadhiyay ilaa hadda muddo kordhinta kala sugaya iyagoo oo doonaya inay doorasho baana dalka dhicin ay sii fadhiyaan oo intaas oo dhan ay fadhiyeen amadman ku sameyn kari waay sharciga yaraa qodob waliba qabiyo ku yahay maanta in Allah inta qodob ee Soomaaliland isku dastuurkan ka kooban yahay qodob waliba waa qabiyo amadman buu baahan yahay iyagaan halkaayna dhigay waana aad aragtaa intay fadhiyeen maanta waxa shaqo ka dhigteen kolba wixii dan ugu jirto way u qabtaan cid baa dabada ka riixaysa barnaamijka waana arrin sharci darro ah sidoo kale waxa arrintan aan ku eedeynaa oo wada oo doonaya in la isku qabsado oo doorashada ma garanaysaa dhici doonto lagu carqaladay baarlamaanka qaar ka mid ah oo doonaya in dadku la murmaan iyagoo miiska ay noo fadhiyaan xafiiska ay noo fadhiyaan Maxamed Yuusuf Iimaan Bulsha TV Hargeysa.